29 Oktoobar 1969, hay-ad lagu magacaabay ARPANET oo loo soo gaabiyey Advanced Research Project Agency Network ayaa samaysay system isku xiriiriya 4 kombiyuutar oo ay kala lahaayeen 4 jaamacadood oo kala ah Jaamacadda Utah, Jaamacadda California, Jaamacadda Los Angeles iyo Jaamacadda Stanford. Markii systemkani uu shaqeeyay, jaamacadaha waxay awood u yeesheen inay faylasha xogaga iyo macluumaadka iskula wadaagaan. Khubaro ayaa bilaabay inay balaariyaan systemka isku xirkiisa, waxaana lagu soo daray iskuulo iyo jaamacado dheeri ah sida Jaamacadda Harvard. Systemkana waxaa loogu magac daray internet. Waxaa socotay horumarinta lagu sameeyay internetka ilaa laga soo gaaro 1972. Waxaa la hindisay email oo ah hab fariin la isugu diro iyadoo loo marayo internetka. Waxaa la sameeyay sharciga wax isku diridda internetka oo loo yaqaanay TCP/IP, kaas oo qaabiyay hanaanka wax isku diridda ee gudaha internetka. Internetku waxa uu gaar u ahaa khubarada, saynisyahanada, shaqaalaha iyo dadka kirista ilaa laga soo gaaro 1995 markaasoo laga qaaday xayiraadda loona ogolaaday shacabka.